السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا شرفت بدن سود وهذا دمانتين وحنا نجعل لها إن حلو قف إن تجعل أما أنو تجعل لها قف إن دريما مركا إن دباتي سنة هاي سدا سوكلين إنه عن درينا قف إنه نحرستا قف إنه كهلو كالجعيل إن حريس أكتيسة قف إنه جعلانه إلا نلوشين أنت كدمنا إنه أكتيسة كقادرنا لكن واحد شر الله وقضب oo ka muhiimsan inaad wax jeclaato oo ka muhiimsan in lagu jeclaado oo ku sahli kara hadii aad aqal ama guri leedahay in gurigaagu uu sii waaro oo uu sii jiro hadii aad xiriir iyo yaani aad leedahay haasaawada qofka tihiina ay dhici karto aad gaadhaan heer mustaqbal oo yaani guurkiina iyo mustaqbalkiina ee aayihiina uu noqdo mid sii waara hadii labada shay aad iska weydana ay suurtagal tahay ama ay halis ugu jirto in gurigaagu burburo ama xiriirkaagu uu noqdo mid waqtigiisu uu soo dhamaaday labada qodob way ka muhiimsan yihiin inaad qof jeclaato wayna ka muhiimsan yihiin in lagu jeclaado muuqaalka maanta intaas ku saabsan yahay fadlan soo dhawow muuqaalkana like saar saaxiibadaadana la wadaag hadii ay suurtagal tahay oo muuqaalkan ku soo gaaro oo maasantiin ku soo dhawaada muuqaalka laba qodob oo ka muhiimsan in lagu jeclaado ama aad wax jeclaato ayaan rabaa muuqaalka sidaan markiisii hore idin sheegay inaan ku soo qaato qodobka koowaad waxa uu yahay ixtiraamku wuu ka qaalisan yahay in lagu jeclaado uuna ka qiimo badan yahay inaad adigu wax jeclaato hadii noloshaada aan ixtiraam ku jirin ama qofka aad la socoto aan ixtiraam iyo qadarin aan ku haynin ma jiri karo wax xiriir la dhaho ama jacayl la dhaho oo dhexdiina imaan kara حتى انت aan xiriir iyo qoys la imaan noloshaada caadiga dadka ku hareeraysan ehelkaaga qaraabadaada dadkaaga iyo cid kasta oo noloshaada ku hareeraysan hadii aan agtaada ixtiraam ka helin ama adigu aadan agtooda ixtiraam ka helin ma sii wada joogi doontaan ma sii wada noolaan doontaan nolosha qoyskuna waa taas oo kale weyna ka muhiimsan tahay hadii qofka aad haasaabo wadaaga tihiin ama qofka aad jacaylku idin ka dhaxeeyo dhexdiina aanu ixtiraam oolin oo qofka kale aanu ixtiraamaynin ma sii jiri karo wax la yiraahdo jacayl oo dhexdiina iman kara ixtiraamka laftiisu wuxuu u baahan yahay naftaada inaad ka bilowdo ugu horey naftaada inaad ixtiraamto oo qiimeyso kadibna dadka kugu hareeraysan gaar ahaan qofka aad nolol wadaaga noqon doontaan qofka aad rabto inuu ubadkaaga aabe u noqdo ama hooyo u noqdo qofka aad rabto inuu awlaadaada xambaaro ama awlaadaada uu noqdo waalid u noqdo qofka aad rabtaan inaad noloshooda dhan isku darsataan shayga jacaylka ka muhiimsan ee loo baahan yahay inaad ku wada dhaqantaan waa ixtiraamka qodobka koowaad kaas uu ahaa qodobka labaad ee loo baahan yahay inaad naftaada barto ama ay ku dhaqanto si aad u samayso jacayl guurkaaga ama gurigaaguna uu u noqdo mid waara oo waqti dheer sii jira waa kalsoonida inaad qofka aad jeceshahay u qaado ma aha ugu horeyn waa inaad naftaada u qaado naftaada inaad ku kalsoon tahay naftaada inaad ku qabto kalsooni buuxda kadibna aad qofkan aad jeceshahay aad ku qabto kalsooni buuxda dadka qaar waxa laga yaabaa inay dhahaan qofka aan xiriir wadaaga nahay ama guriga aan wada deganahay wuu khiyaamaa sidan ii galay see ugu kalsoonaan kara waxyaabaan ku arkay kalsoonidu maaha kaliya inaad qofka aad xiriir wadaaga tiin ama aad jeceshahay aad u qaado naftaada kalsooni kaaga baahan naftaada waxay u baahan tahay inaad ku kalsoon tahay hadii uu qofka noloshaada ka baxo ama uu dhibaato ku geysto in aadan u jabi karin oo aad noqon karto qof jira oo noolaan kara oo socon kara oo aan cuntada diidin oo aan hurdo diidin oo aan walwalin oo aan fikirin sababtoo ah naftaada hadii kalsoonida naftaadu ay yar tahay inaad qalbi jabto way sahlan tahay inaad ooydid way sahlan tahay inaad murugooto way sahlan tahay inaad dhibaatooto way sahlan tahay ugu horeyn waa inaad naftaada ku kalsoon tahay inaad tahay qof adag wax qabsan kara qof qiimeyn kara jeclaan kara qadarin kara ixtiraami kara aaminaad iyo kalsooni kula dhaqmi kara marka labaadna waa inaad ku kalsoon tahay xiriirka iyo jacaylka dhexdiina yaala inuu noqon karo mid waara inuu noqon karo mid bilaa shakiya inuu noqon karo mid bilaa walwala inuu noqon karo mid bilaa caqabad ah oo bilaa dhibaato nolol xiriir bilaa dhibaato ma jiro laakiin inaad ka gudbi kartaan si wada jir ah labada qodob ee marka ka muhiimsan inaad wax jeclaato waa ixtiraamka iyo kalsoonida naftaada iyo kalsoonida qofka aad u qabto aad jecesha maasintiin asxaabta qiimaha badan hadii muuqaalkan soo gaaray la wadaag saaxiibadaada kale intaasan ku soo koobaya muuqaalka maanta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.